السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين به داوديال ميل والباه يسوى الباه نولات شنقاذ سان كسو دوادا برنامج كان ورئيسي أنه كلا يلان إنه مدحوينها دولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجة أو كسو غيب قلي كلوينها مدحضة أفريكا كقب صومي مالمهان لصوردا في مقالة أديس أبابا مدنا مدحويني كسو دو أنه آد كاقم هدنا غينو fursada qaaliga ahayd nasiisay inaanu waraysigani kaaga qaadno magaalada Addis Ababa shirkan madaxeedkan midowga Afrika ee laga soo ka soo qayb gashay 33 waxa halku dhag u ahaa aamusinta qoriga ajendahaas marka la eegana Soomaaliya oo kale meelaha colaadaha ay ka jiraan ay ka mid tahay maxaad kala kulantay madaxdii Afrikaankeedii kuwii kale ee caalamka ka socday marka ku aadan ballanqaadaba oo ku aadan in wax leedan kala qabto colaada Soomaaliya iyo dhibaatada ka taagan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Horta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo TV-ga Universal TV runtii shaqada wanaagsan ay hayaan macluumaadka ay dadku gudbiyaan iyo wacyigelinta aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa. Su'aashaada markaan ka jawaabo kulankan waa kulan sanadeed ay isugu yimaadaan madaxda Afrika saa sheegtay sanadkan theme-ka wuxuu ahaa ama waxa laga hadlayo waxay ahayd sidii loo joojin lahaa wax alla wixii dagaal colaada ah ama xabad joojin ama in la aamusiyo wax alla wixii shanqar ah oo keeni karto xabadaha iyo wax lamid ah runtii wuxuu ahaa shir dhaxalgal ah oo wanaagsan oo very productive ah anaguna runtii waxaan ka qaadanay oo aan uga faa'iideysanay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynka bacdama anagu aan la dagaalano ama aan dagaal kula jirno argagixiso caalami ah oo international ah runtiina ay tahay hadda markii ugu dambeysay oo si toos ah oo xoog badan loo wajaho argagixisada Soomaaliya joogta maxaa yeelay waxa xaqiiqa haddii aanan la soo afjarin inay dhici karto inay dowladaha dariska Soomaaliya ah ay runtii ay yimaadaan oo dhibaatooyinka abuuraan marka in nalaga qaado cunaqabateenka in haysta oo muddo dheerna haystay oo dalal Afrika qaarkood naftoodana u saaran yahay si aan ula dagaalano oo aan u helno qalabkan u baahanahay argagixisada Soomaaliya muddada dheer dibka ku haysay oo burburka iyo dhimashada abuurtay ama keentay wayahay aan u soo laabano isla inta aad joogtay magaalada Addis Ababa waxay soo wala gaaray sanad guuradii saddexaad tani inta xilkan qabatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya saddexdaas sano ma isleedahay waxyaabo badan ayaa ku qabsoomay oo ma ku qanacsan tahay wax qabadkaaga saddexda sano ee la soo dhaafay runtii isbedelkan wuxuu ahaa saa sheegtay saddexda sano hadda laga joogo isbedel runtii cusub oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay soo dhaweeyeen iyo waliba qaabkii electionka u dhacay oo la kala dooranayay dad khibrad leh oo dhanka dawladda khibrada ku leh lana soo tijaabiyay anigana aan noqday ninkii lagu aaminay runtii hoggaanka dalka dadkuna waxay qabeen expectation aad u sareeya oo runtii anaga nafteena culays badan u keenay sidaan u manage gareyn lahayn ama aan u xakameyn lahayn maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku jirtay muddo dheer dagaal sokeeye mar de dawlad la'aan lahaa 10 sano ugu horeeyay 20kii ku xigayna dawladii qaadi weyday bacdama khilaafaad badan uu hareeyay dadku waxay filayeen marka hadii dawlad cusub ay timid oo anigana lagu doortay khibrad lagu doortay iyo 8 bilood aan joogay prime minister kaan ahaan joogay dalka waxaan soo qabtay in dadku filayeen in aan wax ka bedeli karo wax badan ka bedeli karo xaaladda dalka jirta kaliya bedeli kara ma in dibkii dhacay 30 sano dawladayda ay markiiba ay runtii gaarsiin karto dalka barwaaqo iyo horumar la taaban karo waana dib badan tahay maxaa yeelay burburka Soomaaliya soo gaaray burbur sahlan maaha oo dib u dhac weyn ya dalka ku yimid waxay u baahan tahay sanado badan iyo dulqaad iyo u baahan tahay marka doorashadaas waxay doorasho khibrad iyo dad la soo tijaabiyay doorasho loo kala dooranayay ahayd sababta khibradda keentay dadku inay u arkaan muhiimna waxay tahay qofku markuu khibrad u leeyahay shaqada sida adduunka oo dhanba wuxuu leeyahay qorshe uu leeyahay iyo sidoo qorshaas ku fulin lahaa annagu marka waxaan u fahamnay
runtii oo aan aaminsanayn waxa Soomaaliya ka hadlaysan inay ahayd deganaansho la'aan siyaasadeed, xasilooni siyaasadeed la'aanteed ama stability inuusan jirin. marka labaadna loo baahnaa dowlad wanaag oo runtii daacad laga yahay. ma aha dowlad qofku wuu rabaa in dowlad wanaagsan tahay, laakiin madaxdu inay daacad ka tahay oo iyagu ay noqdaan example, inay iyagu noqdaan dadkii runtii ka shaqeynayay isbedelkaasi dowlad wanaagga ah. runtiina waana ka dhabeynay. waxyaabaha noo hagaaga waxa weeye in dowladdani ay keentay xasilooni siyaasadeed, dowlad wanaagna aan keenay, laakiin weli dib uu naga haysto inaan manage garayno expectationkii dadku ay qabeen oo ahaa dowladdani barwaaqi keenaysaayo wax alla wixii burburkii iyo dhibkii dhacay waxaa looga baxaya muddo yaroo kooban. taasna dee waxa weeye waa awood ilaahay weeye. maxaa yeelay waa ka harnay wadamada dariska ah, caalamkana waa ka harnay. burbur badan baa dalka ku dhacay, hadday noqoto mid dad iyo hadday noqoto mid hanti labadaba. marka in laga soo kabto waxay u baahan tahay muddo dheer. waayahay, marka laga tago filashada dadweynuhu aada u sarreysay iyo wacdigii meesha yaallay, marka aada doorashada ku jirtay ololaha, hadaladii ugu badnaa markaasi dadka maankooda gala waxaa ka mid ahaa inaad wax badan ka qabanaysay amniga, dowlad wanaagga, helidda waxaa weeye xasilooni siyaasadeed iyo weliba musuqa. aan ku horeyna amniga. 3 saneed madaxweynaha ka tahay dalka Soomaaliya, caasimadda magaalada Muqdisho xamar waxaa ka dhacay qaraxyo naf badan galaaftay oo kii ugu dambeeyay Ex Control, Sobe, SYL iyo kuwa kaleba. waxaa kaloo olahaagii hadaladii olahaaga ku jirtay in aad caasimadda ka dhigi doontid mid amni ah, dadka wadooyinka aysan shacabka loo furi doono, isla markaana aad si weyn markaasi tallaabo uga qaadi doontid al-shabaab. filashada ka sokow, dhinaca amniga ma isleedahay intaa in ka badan baad qaban kari lahayd oo aad ka gaabisay? xaqiiqatan cadowgaan la dagaalayno horta waa cadow argagixisa ama terrorista ah. ma aha cadow aad arkayso meesha uu fadhiyo ama aad wajahayso ama kusoo weerarayo, toos kusoo weerarayo ama aad weerarayso oo meel ku ogtahay. ma aha, waa cadow dhuumaalaysanaya oo dadka ku dhex jira. xaqiiqatan waxaan ku guulaysanay in iska horimaad aysan dhicin, ay uga hor yimaadaan ciidankeena geesiyaasha ah. laakiin dhuumaalaysigoodu inuu keenay inay soo qariyaan qaraxyo oo ay ku qarxiyaan meelaha bulshada ay joogaan ama dadku u badan yahay, halkaas ay ku waxyeelayaan dad runtii aan waxba galabsan, caruur, dhalinyaro, duqey, dumar, cid walba leh. taasna runtii meel walbay ka dhacdaa. annaguna waxaan is leeyahay cadowgaan aan la dagaalamayno wuxuu soo jiray muddo 10 sano iyo ka badan uu soo dhismayay. meesha aan ku leeyahay dalku wuxuu u baahnaa xasilooni siyaasadeed waxay ahayd in dowladda markaas qabata qorshaheeda dhigata kadibna qorshaheeda fulisa. waxay u baahan tahay waqti, laakiin waxay ka faa'iidaysteen iyagu dowladihii aniga iga horeeyey oo runtii soo badbedelayay oo runtii khilaafaadka u hareeyey oo sanad walbaba la keenaya barnaamij cusub iyo dowlad cusub. intaasi dib u dhac dowladda ku dhacaysay iyagu waxay ka shaqeynayeen sidii ay u horumarin lahaayeen aqoonta qaraxyada, dhuumaalaysiga, inay dadka kusoo dhex dhuuntaan, intelligenciga iyo waxyaabo la mid ah. marka waxyaabaha aan runtii aan aaminsanahay aan ku guulaysanay waxay tahay inaan yareynay qaraxyadii, aan aad u yareynay marka loo fiiriyo dowladdii aniga naga horeysay oo qaraxyadu ay ahaan jireen usbuucle way ahaan jireen. haddana marmar waxaa laga yaabaa inay dheeraato aan la arag qarax. waxaa keenana ay tahay in aan tababar wanaagsan siinay ciidamadeenna, in moralkooda kor aan u qaadnay oo aan xuquuqdooda siinay, ay feejigan yihiin inay difaacdaan shacabkooda, ay difaacdaan. la dagaalanka argagixisadu waxay qaadataa muddo aad u dheer ayay qaadataa. annagana runtii waa bilownay. maxaa yeelay ka sokow xasiloonida inaan helno waqti aan ku fakerno, aan qorsheenno oo la wada shaqeeyo. waxaa ku xigta dowlad wanaag oo naftigeeda ah in aan dakhligii kor u qaadno oo mushaaraadkii kulli aan bixinno. marka intaas marka laisku daro waxaan isleeyahay muddo yar gudaheeda insha allah kusoo afjari doonaa cadowgan dadka dhibay. hadalkaaga qaab dhismeedka dawliga uu sii jiray, madaxdii iyo xukuumadaha unbaa isbedbedelayay. haddii ay dhammaato in waqtigaaga uu dhammaado ood ka tegtid oo kale, ama mar walba ma waxaad is leedahay
ninkii yimaadaba eber buu ka soo bilaabayaa sida dhinaca amniga oo kale la dagaalanka ma weysan jirin qaab dhismeed jira oo kolba waxa weeye isbedelka yimaada uusan saameynin waa su'aal wanaagsan wadanba wadanka uu ka leeyahay continuity uu dowladdiisu ay isdaba joog tahay waa ka horumar badan tahay dowladaha isbedbedela maxaa yeelay marka aan dhanka dhaqaalahan ka fiiriyo haddii la rabo in lagu maalgashado waxaa la fiirinaya deganaanshaha dowladdaas inay tahay dowlad kula dhammaystiri karta mashaariicdii la bilaabay iyo shaqadii la bilaabay iyo dowlad heshiiskii la galay fulin karta laakiin haddii uu jiro isbedel joogto ah cid ku maalgashanaysa ma laha waxqabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxaa laga yaabaa dadkii yimaada inay kow ka bilaabaan maxaa yeele wixii ma fahamsana markaan dib ugu noqdo dadku waxay dooranayeen khibrad sax bay ahayd awal waxaa la dooran jiray dad cusub oo lalahaa lagu tijaabiyo laakiin february 8deedii waxay keentay dadku inay runtii bislaadaan xildhibaanadu bislaadaan oo ay doortaan khibrad ayna kala doortaan dad lasoo tijaabiyey marka iyada naftigeeda doorashooyinka 4 sano dhacaya waxay tahay dowladdu haddii prediction laga samayn karo la saadaalin karo waxa imaanaya waxa weeye aaminkaagana waa fiicnaanaya oo cidda rabta in wax kula qabsato waxay aaminsan tahay inaad joogayso ay kula shaqaysan karto marka isbedbedelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka waxaana loo daneeyaa marka isbedel dhacayo shakhsaa loo daneeyaa dalka looma daneeyo laakiin marka ay dowladdu isdaba joog tahay waxaa loo daneeyaa institutionska dowladda waxaa loo daneeyaa dalkaa loo daneeyaa maxaa yeelay waxaad haysataa hadday dowladdu fiican tahan ka hadlaya hadday dowladdu khariban tahay oo lagu asteeyey ama lagu magacaabay inay tahay dowlad musuq maasuqa ama dowlad aan waxba qabanaynin oo aan horumar keeninin waa meesheeda laakiin hadday dowladdu shaqaynayso kalsoonida shacabka haysato musuq maasuq la dagaalayso maalin walba horumar la taaban kara ay samaynayso khasbiyan waxaa habboon in dowladdaas ay sii shaqayso waayahay isla amniga markaan ka hadlayno masiibooyinka waaweyn ee qaraxyada markay dhacaan ee naafo badan lagu waayo oo shacabka Soomaaliyeed ay soo gaadheen inta badan ma muuqatid ma la arko adigoo shucuurtaada cabirayo dadka la wadaagayo maalmaha adag oo la hadlaya maxay ku dhacday inta badan oo u gaabsataa xaqiiq maaha markii musiibo dhacdo waa hadalnaa waa ka tiraanyoonaa waa ka tacsiyeynaa waa xaqiiqa laakiin shaqadii waa la kala leeyahay waxyaabahan ka bedelnay dhaqanka siyaasadeedka hada jira ama hore u jiraan ka bedelna waxay tahay shaqooyinka waa la kala leeyahay waa in aad ku kalsoonaato dadkaas shaqada u dhiibatay waa in prime ministerku uu shaqadiisa qabsado aad ku kalsoon tahay waa in prime ministerku wasiirkiisa amniga uu shaqada qabsado uu ku kalsoon yahay waa in hay-adaha kale oo amniga ay shaqadooda qabsadaan laakiin haddii madaxweynuhu meel walba taagan yahay oo runtii prime ministerka naftigiisu uu meel walba taagan yahay oo uusan shaqada u ogolaanaynin dadka ka hooseeya institution kuma dhismo waxaan abuurmaya runtii iska horimaad iyada naftigeeda maxaa yeelay haddii kalsooni aysan jirin wada shaqayn ma jirto marka anigu waa ku kalsoonahay xukuumadeyda prime minister waa ku kalsoonahay wasiiradiisana waa ku kalsoonahay wixii tabar ah waa meesheeda hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay capacity waa meesheeda laakiin waxaan aaminsanahay shaqadii loo idmaday inay sidii loogu talagalay u hayaan maamul wanaagga waxaa sal u ah sidoo xukuumadda ama dowladdaas ay uga madax bannaan tahay musuqa 3 sanaba waxaad soo bixiseen ku soo bixiseen listiga koobaad dhinaca musuqa ay hay'adda Transparency International ay soo saarto musuqana waxay ahayd ololahaagii waxyaabaha wax badan ka qaban doontid maxay ku dhacday ilaa hadda inaad liiska kow kaga jirtaan sideed sadareentaa madaxda Afrikaanka oo kale madaxda caalamka oo kale markaad dhex socotid adigoo wadankaaga lambar 1 uu ka yahay dhinaca musuqa oo kale runtii waa arrin aad u foolxun oo aad u xun weeye haddii mar walba lagu sheegayo inaadan aamin ahayn oo lagu sheegayo in dowladdaada iyo dadkaagu ay yihiin dad tuuga ah wax aad u xun weeye waana perception dhismay oo jira kaligeedna ma aha waxaa qayb ka ah oo nala mid ah dowladaha runtii burburka iyo colaadaha iyo dagaalada sokeeye soo maray ama ku dhex jira yaa nala mid ah maxaa yeelay systemkii yaa burburay oo wax lagu ilaalinayo lagu korjoogteynayo yaa lumay markuu systemka lumana waxaa soo haraya qofka dabeecadiisa iyo shakhsiyadiisa soo haraysa hadduu yahay qofku qof wanaagsan oo ama ilaahay ka baqaya
ama runtii ceebsanaya waxaan waa iska ilaalin laakiin system celinaya ma jiro maxaa yeele systemkii baa weak ah ama aad u jilicsan marka anaguna runtii waa sidaa sheegtay waxay u baahan tahay waqti dheer saan kuu sheegay waa xasilooni in la helo oo lagu ogaado qofka xun iyo qofka fiican ma ogaan kartid haddii mar walba isbedel uu imaanayo maxaa yeele mar walba qof cusub baa la tijaabinaya haddaad xasiloonihaysanna dowlad wanaag kama shaqayn kartid marka runtii waa arin aad u fool xun oo magaceena runtii wax badan u dhimay nalagu sheegaya anagoo islaana anagoo dhaqan fiican oo soomaali ah leh in nalagu sheego dad aad u xun inaan nahay aad ayay u xun tahay laakiin runtii wax badan ayaan ka bedelnay mudday qaadanaysaa dulqaadna waa loo baahan yahay inaan ka bedelno perceptionkaas jira inaan wax badan ka bedelno waxaan sameynay hadda inaan dakhligii aan kordhinay miisaaniyadeennii hadda sidaan markaan nimid aan laba jibaarnay waxay ahayd 200 milyan wax ka yar ayay ahayd haddana 400 iyo wax dheeraada ayaan hadda gaarsiinay labo waxaan xakameynay kharashaadka sidii loo bixin lahaa iyo qaabka lagu bixin lahaa inay tahay qaab budgetka ama miisaaniyadda ku jirta aysan ahayn qofka wuxuu ku riyoonayo kusoo kaco subaxdii wuxuu rabo ka sameynayo taasna runtii waxa ay noo suurto gashay in aan hay-adaha dowladda aan reform ku sameyno marka la fiiriyo dhanka amniga kow marka la fiiriyo oo aan xaqiijinay askariga ama sarkaalka inuu yahay sarkaal dhab ah ama askari dhab ah oo howlgallada diyaar u ah inuu galo uusan ahayn ghost soldier ama waxaan jirin oo number leh oo dad ay been ku qaataan waxaan keennay biometric oo la sameyn waayey 10 sano iyo wax ka badan yaan dhaqan gelinay waa runoo culays badan baa nooga yimid laakiin waa ku adkeennay in askari walba si uu xuquuqdiisa u helo inuu maro biometric oo la registareeyo oo loo sameeyo record ama file loo sameeyo annagu intaan iman ka hor hal askari oo file leh ma jirin oo meel loo raaca leh ma jirin ilaa failku waxaa ku jira qofka informationkiisa ku jira mas-uulkiisa ku jira meesha uu ka yimid baa ku jirta waxaa ku jira shahaadooyinkiisa ku jira dalaacsantiisa ku jirta discipliinkiisa ku jira haddee dowlad dhan oo askartooda janan laga bilaabo ilaa askari ugu hooseeya aan lahayn gal file yaan ugu nimid annaga haddana runtii waa dhammaystirnay inaan gal file u sameyno oo askari walba uu xuquuqdiisa helo waxay keentay marka taasi in askartii iyo ciidamadii guud ahaan moralkooda kor u qaadno ay awood u yeeshaan inay wajahaan ama la dagaalamaan cadowga soomaaliya muddada dheer soo dhibayey ama dhibaatada ku hayey haddana waxaa muuqata runtii guulo iyo saarsaan fiican oo aan rajeynayno inaan dalka uga sifeyno shabaab insha allah intaas waxaa dheer mushaaraadka aan bixinay oon ku guulaysanay 3 sano lasoo dhaafay iyada naftigeeda waa qayb ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dowlad wanaagga waana hor u dhicin 3 sano oo consecutive ah oo joogto ah horay uma dhicin oo la siiyo mushaaraadkooda ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah taasna waxaa noo qiray iyada naftigeeda waxaa noo qiray hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha yaa noo qiray in dowladdan ay tahay dowlad hufan oo la aamini karo taasaa waxay keentay marka in deen cafis u yimaado in aan rajo u yeelano in lacagana la amaahin karo ama deeqa aan heli karno aan dalkeenu ku horumarino runtii dalku meel fiican buu ku socdaa rajaduna waa fiicanta musuqa oo ah si khaldan u isticmaalka hantida dadweynaha marka laga tago reformyada aad samayseen waxa ugu badanoo lagula dagaalamo de waa mas-uuliyiinta oo kale in laga tallaabo qaado ilaa hadda ma jiraan wax mas-uul ah oo dowladdaada ka tirsan oo musuq lagu helay lagu xidhay oo markaas sharciga lagu mariyey su-aal wanaagsan weeye dowladdan anigu aan madaxweynaha ka ahay waa dowladda ugu horeysay oo horta qof musuqmaasuq loo xiro oo maxkamad loo geeyo oo lagu xukumo markii ugu horeysay fari kama qodna runtii waxay u baahan tahay waqti dheer iyo u baahan tahay maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad system sadgarayso systemka aad diyaarinaysidna keliya ma aha system dhaqaalaha lagu xakameeyo ku takrifalkiise waxa weeye xeer ilaaliyaasha CID-da maxkamadaha waxaasoo idil waxayna u baahan tahay waqti lagu dhiso institutionska annagu runtii daacad waa naga tahay in dalka musuqmaasuqa aan ka tirtirno oo aan la dagaalano daacad waa naga tahay laakiin meesha waxaa taala tabar yaa jirta dadkii waxaa la rabaa in capacity-goodii iyo aqoontoodii la kobciyo waxaa loo baahan yahay wacyigoodii kor in loo qaado oo la tuso
haddaadan ilaahay ka baqin waxaad aadaysaa xabsi. musuqmaasuq waa wax xun oo dadka wacyigoodii aan kor u qaadno, culammadu iyagoo naftooda qayb ka qaataan in hantida dadka ka dhexaysa isticmaalka shaksi u isticmaalayo si aan wanaagsanayn oo ku tagrifala inay tahay dembiyada ilaahay uusan cafin oo qofku uu cadaab ku galo. maxaa yeelay qof markii aad shaksi ah wax ka qaadato waa oran kartaa cafi, laakiin ummad aan dhalan, ummad indhala, ummad dhagala, ummad curyaamiina nooc walba leh aad ka qaadatay oo milyanis ah yaad weydiistaa cafis. marka runtii waxaasoo dhan waxay u baahan tahay wacyigelin dhan walbaba ah, dhankeenna iyo dhanka culummada iyo bulshada naftigooda inay fahmaan si dowlad wanaagsan oo horumarsan loo helo in hantida ummadda ka dhexaysa oo loogu talagalay in dalka wax lagu qabto aysan gelin shaksi jeebkiisa. waayahay dhinaca kale aan u leexano. 3 sano ee joogtay waxa weeye kursiga ugu sarreeya ee dalka Soomaaliya, maamul goboleedyadii oo dhan waxaa muuqata inaad maamul goboleedyada qaar inaad isku dhacdeen. waxaa hadda jirta in dowlad goboleedka Puntland ay maamulkeeda ku baaqeen in 15 bisha foodo inugu sahaysay March ay yeelanayaan shir ay ayahooda kaga tashanayaan yani xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaasi Puntland. maxaad isleedahay kala fogaanta way keenaysaa? horta xisaabta in lagu daraa la rabaa. dalku muddo dheer iyo dib ku jiray, dalku waa kala furtay, dadku waa kala irdhoobeen. annagoo sidaas ah yaa waxaa la keenay systemkan federaalka ah oo dastuuri ah oo aan u wada dhaaranay. aqoon badanna dadku uma laha, mana fahamsana waxa uu federaal yahay. marka taas horta naftigeeda waa cilad faham la-aanta waxa federaalku yahay. labo, dowlad goboleedyadaad soo qaaday ma aha cilad dowladdan kaliya haysata, waa cilad soo taxnayd oo caqabado soo taxnaa oo aniga iga horeeya weeye. waxaana qayb ka ah may laga yaabo qaab dhismeedkii lagu dhisay inay ahayd oo inta badan dowlada shisheeye ay gacmo ku lahaayeen ama saameyn ku lahaayeen. taas waxay keentay marka dowlad goboleedyadii inay u arkaan inay yihiin dad madax bannaan oo ka madax bannaan dowladdii dhexe ama dowladdii federaal ka madax bannaan, bacdamaa xiriirye la leeyihiin shisheeyahaasna runtii uu naga dhexeeyo tartan iyo siyaalo kale aan dhibaato noo dhex mari karto. marka waxay ka noqdeen qaar ka mid a dowlad goboleedyadaas qayb isfaham la-aanta dowlada shisheeye naga dhexeeya inay qayb ka noqdaan oo naloo soo isticmaalo. markii la waayey in dowladda dhexdeedii ama dowladda federaalkii laga waayey caqabado iyo iska horimaad iyo khilaaf laga waayey, in iyagii naloo soo dhex maro oo naloo adeegsado dowladaha shisheeye oo aan ishayno. nasiib daro wayna dhacday, dhowr jeer iyo dhacday. aniga keligeena ma aha dowladdan wax dhib haysta keliya ma aha, waa wax naga horeeye weeye. oo maalan doorashadii hadda hore ee lasoo dhaafay in qaarkood looga yeeray dowlada shisheeye looga yeeray oo dhaqaal lagu soo siiyey inay soo saaraan dad gaar ah soo saaraan oo ahayd wax muuqda oo aan qarsoodi ahayn. anigu markaan imid khilaafkii ka dhex dhacay dowladaha khaliijka annaga dhexdhexaadkan ka noqonay in qaarkood loo yeeray oo dowlado kale u yeerteen oo nalaga hor keenay. qaarkoodna ay caddeeyeen runtii inay shaxaad tageen oo dhaqaale raadsadeen. markay yimaadeen problemi ee nagu bilaabatay ay samaysteen maxaanku yiraahdaa urur gaar ah ay uga hor imaanayaan ama ay ku curyaaminayaan habsami u socodka dowladnimadeena iyo federal systemka. wayna caddeed, wax kalena ma aha, waa sida ay u fahamsan yihiin federaalka yaa khaldan. maxaa yeele dowladda dhexe waxay leedahay 4 awoodood aan la wadaagin. difaacay leedahay, maamulka dhaqaalaha iyo xakameynta policy loo dejinayo monitoring systemka iyo leedahay dhaqaalaha, immigrationka leedahay, xuduudaha iyo leedahay, maxaa la yiraahdaa arrimaha dibaddana waa leedahay. marka iyaguna intaas iyay runtii toos ay maxaanku yiraahdaa u faragashadaan oo uga shaqeeyaan. qaarkood xitaa waxaa la lahaa lacagahay daabacdaan yaa la lahaa. qaarkood dowladaha shisheeye aadaan oo runtii u tagaan oo heshiisya lasoo saxiixdaan ama soo arkaan oo kala soo hadlaan arrimaha
dowlad goboleedyada iyo dowladahaas kale inkastoo aan ka shaqeynay inaan xakameeno oo aan soo afjarno weli faragelintii way jirtaa oo waana loo soo isticmaalaa oo waa lagu dhex jira aad baa lagu dhex jiraa hadda arinta Puntland oo kale waxa sii xumaysay go'aanka waxa weeye wasaaradda waxbarashada ee dowladda ay ka qaadatay shahaadooyinka imtixaanka dugsiyada imtixaanka shahaadiga ma isleedahay xurguf siyaasadeed oo u dhaxaysa mas'uuliyiin ayay waxay ku waayayaan mustaqbalkii ardada reer Puntland oo adiga aad madaxweynaha xataa u tahay waa su'aal wanaagsan walaalkay Saciidani madaxweynaha Puntland dhowr jeer ayaan cazumay oo aan xamar ku cazumay oo ku yiri walaal waxna dul marin bal mar nagu soo deg oo noo imow aan wada fariisano aan ka wada hadalno runtii guud ahaan xaaladaha dalka ka jira ay ka mid tahay arintaas ilaa haddana uma suurtoobin oo weli wuxuu ku jiraa safarro dowladahaas dariska ah ama meelo fog waxaan jeclaan lahaa inuu noo yimaado oo aan wada fariisano anuu 2 jeer baan tegey maxaan ku raahdaa Puntland tegey runtii dadkana intuu joogay 2 jeer baan tegey dadkuna si sharaf leh oo wanaagsan runtii isu dhaweeyeen oo waa dad runtii dowladnimada jecel waa dad systemka federaalka ah runtii aad iyo aad u jecel oo de waxay sheegaan inay yihiin hooyadii federaalka oo ay ahayd inay hormood u noqdaan runtii ka shaqeynta iyo wada shaqeynta dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka federaalka waa dad runtii aad iyo aad u wanaagsan isagana waxaan rabay runtii inuu dadka dhageysto rabitaankooda iyo waxay jecel yihiin oo ah in dalka midnimadiisa la xoojiyo wada shaqeynta madaxda ay wanaagsanaato si dalkan uu u yeesho horumar iyo amniba uu u yeesho marka taasi waa saas arinta waxbarashada adiga aad soo qaaday runtii waa nasiib daro inaan ku muranno ama lagu wada hadlo maamul maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku murmi lahayn tayada caruurteenna kor ma u qaadnaa maxaa naga halaabay maxaan ka bedelnaa inaan maanta uu ahaan lahaa muranka ka jira waa nasiib daro maxaa yeelay caruurta Puntland waa caruurteennii weeye waa caruurteydii weeye dani caruurta Soomaaliya waa caruurtiisii weeye wasiirka waxbarashada naftigiisa isaga mas'uul ka ah hawshan loo xilsaaray inuu arko wada shaqeynta dowladda maxaan ku raahdaa dowlad goboleedka Puntland inay muhiim tahay oo si kasta aan u hanan karno wada shaqeyntooda aan u sameeyno waxaan aaminsanahay inuu aad ugu dadaalay intii uu joogay inuu soo dhaweeyo uu la shaqeeyo wasiirka waxbarashada ee Puntland marka waxa loo socdana waxay tahay quality waxbarashada in kor loo qaado tayada waxbarashada in kor loo qaado meeshaas meesha loo socdo oo loo sameeyo standard halbeeg loo sameeyo lagu ogaado iskuulkee failure ah iskuulkee fashilmay macallimiintee weeye macallimiinta aan waxba dhigayn hadduusan halbeeg uusan jirin ama standard uusan jirin lama ogaan karo iskuulada hadlaysan laakiin hadduu standard jiro adduunkana waa jiraa maraykanku ka jiraa regional exam ayaa la yidhaahdaa adduunka dhan waa jiraa halbeeg la ogaado iyadoo dee dowlad goboleedku ay imtixaanadooda hadday rabaan ay wataan yaa waxaa jira mid la ogaado standard ah tacliinta guud ahaan dalka meesha u marayo gobolkee liita iskuulkee liita systemkee liita si kor loogu qaado waxaan ka hadlayna waxay tahay caruurteena waxbarashadooda in tayadooda inaan kordhino si ay ula tartamaan ardada kale ee caalamka ah oo marka shahaadadeena la arko la yiraahdo shahaadadani shahaadada ugu sareysa way waxbarashada dugsiyada sare in la yiraahdo waxaan ku xaqiijin karnaa wada shaqeyn ka sokow inaan abuurno standard halbeeg inaan abuurno halbeegaasna aan ogaano xagee wax ka halisan yihiin waayahay aan u soo laabano haddana dhinaca Jubbaland xiriirkiina waayadan dambe ma fiicnayn aad buu si xumaanayay waxaad cunaqabatayseen oo jarteen duulimaadkii Jubbaland haddana waxbarashadii Puntland waatan aad ka hadlaynay Jubbaland oo kale ciidamo ayaa la geeyay gobolka Gado ciidamadaas waxay dadku arkaan in gobollo iyo deegaano nabad ah ay dowladda federaalka ku duushay iyadoo markaas xal u helila oo sugila nabadda wadada gobolka Banaadir ama Jowhar iyo Afgooy oo kale wadadeedii oo wali amni aan ahayn in gadal la tago dad badan waxay arkaan faragelin iyo duulaan ku socota maamulka Jubbaland
arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa runtii waa nasiib daro waa waxyaabaha aan rabno inaan bedelno perceptionka fahamka siyaasadda inaan bedelno ama habdhaqanka siyaasadda inaan bedelno oo loo arko dowladda federaalka inay tahay dowlad ka baxsan foreigner in loo arko dowlad shisheeye in loo arko habdhaqankii jira wuxuu ahaa dowladihii dariska ahaa yaa runtii saameyn ku lahaa dalka Jubbaland markaad tiraahdo iyo meelo badanba markay soo galaan dowladaha dariskana waa okay waa wax wanaagsan markii dowladdii federaalka ahayd oo mas-uulka ka ahayd ay tiraahdo xuduudaha yaan ilaalinaynaa amnigiisa waxa soo galaya wax baxaya waxa weeye faragelin bay samaysay waa dhaqanka aan rabno inaan bedelno dowladda federaalka iyadaa ka mas-uul xuduudaha waana wax dastuuri waa dhab in awoodeenna aysan marmarka qaarkood aysan gaaraynin waa laga yaabaa laakiin waa inaan isku dayno in xuduudaha dalka laga soo galayo beri iyo badba in dowladda federaalka bacdama ay tahay iyada awoodaheedii qayb ka mid ay tahay inaan ilaalino iyo inaan bedelno perceptionka Kenya haddii fargelin ugu samayso waa okay dhib ma laha Kenya maxaa ka galay Jubbaland iyadu maxaa ka galay Kenya shaqo kuma laha Jubbaland shaqo kuma laha fargelin kuma samayn karto waxa naga dhaxeeya arrin badda naga dhaxeeya arrintaas badda ahna runtii meel kasta u maraysaa sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd ama leverage ugu yeelan lahayd Jubbaland anagana ma dooneyno Jubbaland inay u ekaato wax runtii naloo isticmaalo dhibaatada Soomaaliya loo isticmaalo ma ogolaanayno cidii ka shaqeynaya ama facilitate garanayana waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay qof aan ka shaqeynin danta Soomaaliya aan ka shaqeynin marka annagu waxaan u taaganahay oo naloo dhaariyay difaaca dalka naloo dhaariyay ma ogolin shisheeye faragelin shisheeye ma ogolin annaguna ma faragelinayno arrimahooda annagu Kenya ma faragelinayno Ethiopia ma faragelinayno Djibouti ma faragelinayno iyo wadamada kale oo ma faragelinayno oo mana doonayno inay noo arkaan inaan runtii aan ku sameynayno faragelinta noocan oo kale mana aqbalayno in loo isticmaalo dowlad goboleedyadeena aan ognahay qaarkood in dibadaha laga soo dhistay oo igad loo soo xilsaartay dhismahoodii ma garat in ay noqdaan caqabad lagu dhibo dowladda dhexe habsocodka iyo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda lagu carqaladeeyo ma ogolaanayno dowlad goboleedyada aan raalliga ka ahaynana xiriirka wanaagsan idan la yeelanin inaad go'doomisaan mararka qaarkoodna aad ku duushaan waxa madaxdii qaranka oo kale socdaaladooda oo kale inaad xanibtaan ficilada noocaas oo kale markii la eego madaxweyne ma wada un muuqanaynin nin awoodda isku soo koobayo oo la soo baxaya waxa weeye dhaqamadii waxa weeye keligii taliska oo kale fiiri meesha wax ka xalisan waa meeshaas waay meesha wax ka xalisan waxay tahay waxaan la fahamsanayn systemka aan haysano oo federaalkan la aamsanayn dadka hadalladaas ku hadlaya waa meesha annaga aan ka soo galnay siyaasadda oo aan dhiig joojinta ka sameynay inaan bedelno faragelinta shisheeye oo aan soo celino sharafka iyo karaamada dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dalkan Soomaaliya meesha ay joogto kuma gaarin iyada dhexdeeda khilaafaad kaliya ka yimid ma aheene waxay ahayd wax designed qorshaysan oo dibadaha uga yimid Soomaaliya inaysan xana qaadin inaysan socon waxaana loo soo adeegsaday iyada dhexdooda la soo adeegsaday awal waxa la soo adeegsan jiray prime ministerka iyo madaxweynaha iyo prime ministerka la soo adeegsan jiray oo mar walba laga abuuri jiray khilaafaad annagu waa fahmnay khibradeena waxayna fahamsiisay in dowladda dhexe ay isku duubnaato meelna aan laga soo gelin si dalkaani uu u hana qaado uu u socdo oo aan uga leexno jidadkii hore loo qaadi jiray oo khaldanaa markii taas aan ku guuleysanay yaa waxaa nalooga dhigay caqabad dowlad goboleedyadii caqabad nalooga dhigay qaarkood nalooga dhigay marka laga hadlaya dowlad goboleedyada runtii in laisku qaada maaha kulligood waxaan ka hadlayna waxa weeye waa hal wey laga yaabaa hadday u badato waa laba laga yaabaa inkastoo dee weli Jubbaland ay muran taagan tahay oo electionkii dhacay annagu aan aqoonsan aanan waxba kama jiraan wey marka macquul ma aha in la yiraahdo dowladda dhexe waa inay maxaan ku raahdaa siyaasadeedu ay xaliso problemyada dhan wax dhici kara maaha way jiraysaa hal ama labo ka aragti duwan waa jiraysaa oo adduunka ka jirtaa halka ka jirtaa Ethiopia ka jirtaa
kenya ka jirtaa maraykanka hadda aad arkaysaan impeachmentiga ka socda waxaan arkaynaa hadda ingiriiska wixii ka socday way imaanaysaa kala aragti duwanaansho dhanka siyaasadda ah laakiin macnaheeda ma aha burbur ma aha iyo in loo arko in la kala tagayo ma aha arrinta adiga aad sheegtay marka oo annaga ku shaqeyno hadda adiga aad afkaaga ka dhawaajisay annaga waxaan ku shaqeynaa waxa dastuurka waafaqsan oo ah madaxweynuhu waa head of state waa liidarkii dalka weeye wuxuu u xil saartay arrimaha fulinta ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaan ku siiyey awood yaan ku siiyey sidii hadee sida loog yahayna dowladihii iga horreeyey waa muuqatay runtii in faragelin badan iyo dhib badan ay ka jiraan xafiiska madaxweynaha iyo xukuumadda ay ka jiraan taasi hadda 3 sano lasoo dhaafay taasi ma jirto oo waxaan u siiyey xukuumadda awood buuxda inay hawshooda qabsadaan taas waxay caddaynaysaa marka inaan u dhaqaaqnay dhankii dimuqraadiyadda marka kala talis maaha dhankii dimuqraadiyadda ilaalinta dastuurka iyo sharciga cid walba inay hawsheeda qabsato aniguse aan gadaal ka taagnaado oo aan talada bixiyo wixii khaldanna aan saxo waxaa soo hartay arrimaha dowlad goboleedyada waxaa nagu socday muddo dheer fargelin haddana waa nagu socotaa dowladaha dariska qaarkood waxay nagu hayaan kenya ay kow ka tahay fargelin iyo nagu haysaa taasi shaki kuma jiro oo waxay rabtaa leverage inay ku yeelto soomaaliya ha ahaato arrimaha badda xuduudda badda isku haysano oo hadda maxkamadda taalla warqadan u qornay aan leenahay naga joojiya fargelinta aad nagu haysaan etoobiya waxaa naga dhexeeya wada shaqayn fiican oo waxay joojisay dhaqankeedii hore oo ahayd inay u yeerato dowlad goboleedyada inay la shirto inay kala macaamisho waxyaabihii annaga nagala macaamil lahayd oo way joojisay xaqiiqatan kenyana waxaan runtii aan faraynaa ama aan fartiin u diraynaa inay joojiso faragelinta maxaa yeelay ma ogolaanayno annaguna ma rabnan faragelino arrimaheeda gudaha iyaduna arrimaha jubbaland iyo arrimaha soomaaliyana ma ka ogolaanayno inay farageliso waxaan rabnaa inaan yeelano calaaqaad ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn laakiin iysan ma ogolaanayno inay noqoto hal dhinac oo keliya marka waxaan diidnay wax kale meeshan ma yaalaan waxaan diidnay inaan ku shaqeyno wax ka baxsan dastuurka yaan diidnay dowlad goboleedku wuxuu siinayaa awood yuu siinaya oo iyagu ay leeyihiin dowladda dhexeena waxay leedahay awood gaaray leedahay waxaa jira awoodo noo dhexeeya aan wada leenahay xuduudaha annaga iskale hadday tahay cirka hadday tahay dhulka wax una qabateen la yidhaha ma jiraan waa inaan ogaano waxa soo galaya dalkeena soo galaya inaan ogaano oo meeshii immigration u joogo haddii marka maamulkii uu yidhahdo immigrationka ma rabo ma soo galayaan oo ma imaanayaan wixii dowladdu ay lahaydna ma ogolaanayno oo waa iska celinaynaa khasbiyan marka waa inaan helno some mechanism qaab farsamo inaan helno aan ku xaqiiqsano waxa soo galaya iyo wax ka baxaya inaan ogaano dowladdani runtii waxay ka shaqaysay inay soo celiso sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed iyo ka shaqaysay waxaan horumarinay wada shaqaynta dowladaha shisheeye aan leenahay waa jiri karaan dowladda dee aanan runtii wada shaqayn fiican in naga dhexin waa jiri karaan ee kenya ka mid tahay waayahay dowlad goboleedyadii aan waxa weeye idin hogaansamin oo kale hadda jubbaland oo kale doorashadii maamulka halka ka jira ma aqoonsanidin halkan wuxuu noqonayaa in ciidan la dulgeeyo oo la weeraro haddii wax kale la waayo arrimaha xuduudaha aad sheegtay waxay ahayd arrimahan ka soo daahnay ay ahayd dowladda dhexe inay qabato maxaa yeelay waa meesha wax ka soo galayaan iyo meesha wax ka baxayaan wey waana wax runtii dastuuriyan ah waa awoodaha dowladda federaalka ee leedahay ma aha wax cusub aan ku dayeyna ma aha marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo arinta jubbaland waa arin qadiyad bad ah wey fiiri in la fahmaa la rabaa iyo inay dowladda kenya ay soomaaliya ku yeelato leverage wax la yidhaahdo saameyn inay ku yeelato markii ay hesho meel ay naga gacmo maroojiso inaan idhaahno waayahay arrimaha badda aan ka wada hadalno taasna aniga ma aha wax awoodid aan leeyahay baddaas iyo khayraadka ku jira waxaa iska leh ilmo soomaaliyeed oo aan hadda dhalan yaa leh anigu cidna ma siin karo cidna kalama xaali karo arrintaas maxkamaday taallaa maxkamadaas yaan ku go-naa wixii ka soo baxa kenyana uma isticmaali karto arrimaha badda
arrimo siyaasadeed ee gudaha waana taasna waa runtii waa wax nasiib darro ah. waayahay doorasho ayaa dalka ka dhici doonto doorasho hal qof iyo hal cod ah sanad ayaa idin dhiman waxaad ku soo moodeen adiga iyo xukuumaddaada iyo ra-iisul wasaarahaaga inaad soo wada shaqayseen oo xasilooni siyaasadeed inaad gaadheen doorashadan adi ahaan mise soo sharaxi doontaa xagga ra-iisul wasaarahaaga oo kalena ma noqon doontaan waxaa weeye sida hadda tiim aa u tihiin inaad tiim uga soo wada qayb gashaan doorashada soo socota? runtii waxaan bogaadinayaa aan u hambalaynayaa aqalka labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare sida ay usoo ansixiyeen ama ay usoo gudbiyeen sharcigan. runtii sharcigan waa sharci taariikhi ah oo muddo 50 sano ka badan ay ahayd markii ugu horeysay noqon doonto markii ugu horeysay shacabka Soomaaliyeed ay u dareeraan sijooyinka ay u dareeraan oo qof walba uu codkiisa siiyo xisbiga uu rabo inuu isleeyahay dalkan waa badbaadin karaa ama shakhsiyaadka ay rabaan ay u arkaan dalkan inuu maslaxadiisa iyo dantiisa ka shaqeynayo. waxa weeye waa awood usoo korortay shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer laga hayay weeye. waan ku faraxsanahay anigu inaan taariikhdan aan qayb ka ahay ama aan hadda u ahay madaxweyne hoggaan u ahay inaan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed qof iyo cod dastuurka ku taala waa wax dastuuri ah waxaan ka talaabsanayna ma aha. runtii 2017 electionkii ahaa ergooyinka ma ahayn wax waafaqsan sharciga dastuurka ma ahayn kii ka horeeyana ma ahayn. marka aad iyaan runtii ugu faraxsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay u helaan awoodooda loo soo celiyo ay u dareeraan doorashooyin. anagu xisbi yaan sameynaa insha Allah haduu Ilaahay raado. xisbigana wuxuu noqon doonaa xisbi dawladda prime minister aniga aan ku madiisanahay insha Allah haduu Ilaahay raado. xisbiyada kalena waxaan u rajeynayaa iyaga naftooda inay ka qayb galaan oo ay dadaalaan si ay dalkan u noqdo dal runtii la jaan qaadi kara siyaasadaha casriga ee adduunka ka jira oo multi party system la yiraahdo ama qof iyo cod la yiraahdo. qofkii ku soo baxana ama xisbi ku soo baxana uu dalka hogaamiyo. dhinaca kale haddaan ka eegno dhowaantan waxaad saxiixday intaadan magaalada Addis Ababa shir madaxeedkan aad ka soo qaybgelin sharcigii qodista shidaalka ama batroolka ood soo saxiixday. maxaa kugu dadajiyey iyadoo institutionadii dalkaba aysan dhisnayn dowladdii lagu adag aysan ku taagnayn inaad heshiiskaas soo saxiixdo? heshiiskani wax muddo dheer yuu soo socday. waxaan la rabaa waxa in la bilaabo. wax walbana waxaa la rabaa meel inay ka bilaabato. anagu marka waa bilaawgii weeye hawshan. umana daynayno dad dambe inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay annaga hadda joogna oo sharcigan ay tahay inaan xoogga saarno inuu lasoo ansixiyo oo anigu aan saxiixo. shaqo badan yuu u baahan yahay. batroolka ma aha wax hadda la qodayo ama biri la qodayo ma aha. waa muddo dheer yuu u baahan yahay. tan waa bilaaw. marka insha Allah waxaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in inta harsanna la dhameystiro hadduu mustaqbalka. waayahay dhinaca gobolkan u imaanno markii labaad ayuu ahaa markii saddexda hogaamiye ee adiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea aad kulantaan. Asmara ayaa kulankiina ugu dambeeyay ahaa. waxaad January 2018 waxaad gaarteen waxa heshiis saddex geesood ah. ma isleedahay waxay ka xanaajinaysaa madaxda kale iyo gobolkan wax ka sokeeya igad inaad aasaasaysan ma loo qaadan karaa? waa su'aal wanaagsan. hadda kulankeennii hadda ugu dambeeyay oo aan ku qabanay meesha Asmara la yiraahdo runtii wuxuu ahaa kulan aan aad wax badan aan isla jexjeexnay. waxaa ka mid ahaa in dowladda Djibouti la soo geliyo hawshan oo aan looga maarmin. anigana aad iyo aad hawshaasi uga shaqeeyey oo uga hadlay in loo baahan yahay dowladda Djibouti inay qayb ka tahay. annagu haddii aan qayb ka sii ahaanayno maxaa yeelay Djibouti waa dowlad walaalaheena ah. runtiina aan u baahannahay in ay muuqato inay doorkeeda u muuqdo geeska Afrika. waayahay waxaa taagan muran u dhaxeeya labada dowladood ee Djibouti iyo Kenya ee ku aadan hanashada
kursiga ama xubinta aan joogtada ahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay labada dalba waxay sheeganayaan abaal inay ku leeyihiin aasaasidii dowladdan shirarkii dib u heshiisiinta ee markaasi dhacayay labadoodaba ciidamo ayaa ka jooga Amazon haddii kursigaasi iminka u muuqday in African Unionka ay la rabaan Kenya Djibouti ay ku doodayso in ugu yaraan 2 jeer ee Kenya hore u qaadatay kagana dambeysay mowqifkiina xaguu noqonaya su-aashan waa su-aal aada sahal u ah Djibouti waa dad waalehnaa kursigoodana waa kursigeena weeye codkoodana waa codkeena hadda African Security Councilka Peace and Security Councilka waxay ahayd annaga iyaga inaan ku tartanno Ethiopia iyo Sudan ay tartamaan Sudan iyo Ethiopia waa tartameen Ethiopia heshay Sudan baan haysay marka waxa la sugay annaga iyo Djibouti inaan tartanno hadda walaalaheeno kursiga noogu fadhiyaan waa kursigan ku fadhino waxaan ku tartanno meesha ma yaalaan iyaga noogu fadhiyo oo hadda bishan chairka ka ah Peace and Security Council kaasna waa la mid inta ay taagan yihiin oo ay tartamayaan hadda su'aal is weydiiyo ma ah waa kursi anagu naftigeena meesha aan ku leenahay oo danaha Soomaaliya aan lagu dhibaateenin waayahay su-aasheedii ugu dambeeyo deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya waxaad leedihiin xadka ugu dheer wali ma sidoo aragtaa isbedelka ka dhacay hadda maamulka cusub uu ku yimid ma rajeynaysaa inaad jigjiga imaatid madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ma is aragteen intuu xilka hayay ma wada hadasheen arrimaha bal Mustafa waa wada hadalnay waan is aragnay intuu xilka hayay runtii shaqo fiican waa hayaa oo runtii isu soo dhaweynaya Ethiopia iyo Soomaaliya isu soo dhaweynaya toos wada shaqeyn nooga ma dhaxayso waxa toos nooga dhaxaysa wada shaqeyn dawladda federaalka ah halkan asaba ka talisa laakiin waxaan aaminsanahay runtii inuu ka shaqeynayo shaqo wanaagsan hayo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia aad buu mahadsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo fursad noo siiyay inaan wareysiga nooga qaadno magaalada Addis Ababa ee xarunta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya intaan wareysi ama barnaamijkan lamid isaga imaan doono waa Ismaaciil Ibrahim Buurgaaba iyo bahda Universal TV ee dalkan Itoobiya oo gabi ahaan baydan leh kulanti dambe oo xiiso leh ma yaalaan iyaga noogu fadhiyo oo hadda bishan chairka ka ah Peace and Security Council kaasna waa la mid inta ay taagan yihiin oo ay tartamayaan hadda su'aal is weydiiyo ma ah waa kursi anagu naftigeena meesha aan ku leenahay oo danaha Soomaaliya aan lagu dhibaateenin waayahay su-aasheedii ugu dambeeyo deegaanka Soomaalida ee dalkan Itoobiya waxaad leedihiin xadka ugu dheer wali ma sidoo aragtaa isbedelka ka dhacay hadda maamulka cusub uu ku yimid ma rajeynaysaa inaad jigjiga imaatid madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ma is aragteen intuu xilka hayay ma wada hadasheen arrimaha bal Mustafa waa wada hadalnay waan is aragnay intuu xilka hayay runtii shaqo fiican waa hayaa oo runtii isu soo dhaweynaya Ethiopia iyo Soomaaliya isu soo dhaweynaya toos wada shaqeyn nooga ma dhaxayso waxa toos nooga dhaxaysa wada shaqeyn dawladda federaalka ah halkan asaba ka talisa laakiin waxaan aaminsanahay runtii inuu ka shaqeynayo shaqo wanaagsan hayo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia aad buu mahadsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo fursad noo siiyay inaan wareysiga nooga qaadno magaalada Addis Ababa ee xarunta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya intaan wareysi ama barnaamijkan lamid isaga imaan doono waa Ismaaciil Ibrahim Buurgaaba iyo bahda Universal TV ee dalkan Itoobiya oo gabi ahaan